ciidan oo ahayd ciidul fitri ayaa maanta kumanaan muslimiina waxay u dareereen masaajida dalkan Sweden iyadoo magaaladan aan ku suganahay oo ah caasimadda labaad ee Sweden magaalada Göteborg ayana Soomaaliya aad u fara badan ay u dareereen masaajida halkan ku yaala marka hore si aan u gudbo wariyahayga Cabdullaahi Iimaan oo ku sugan magaalada Stockholm iyo waliba sida halkaasi loogu ciiday waad mahadsantahay Ibrahim Bafa waxaanu ku suganahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden kumanaan kun qof ayaa ka soo qayb galay salaada ciid maanta ee lagu dukanaya magaalada Stockholm iyadoo xaafadaha ugu badan Soomaalidu ay degan yihiin ee Rinkeby iyo Tensta ay si aad iyo aad uga soo qayb galeen Soomaalida deganeed ku tukashada salaada ciid labada masjid wajiyadooda ayaa waxaa ka muuqday farxad aad u ballaaran iyagoo ay soo gutay waajibaadkii 30 maalmood ee bisha Ramadaan iyadoo lagu xisaabtamay inay sanadkan waliba sanadaha kale ka duwan tahay oo saacaduhu ka dheer yihiin 9 iyo 10 saacadood in la soomo 5 saacadoodna laga afuraa maalintii iyo habeenkii oo dhan mar aan wax ka weydiin dadweynaha ka soo qayb galay masjidka ku yaala Tensta وحكمت أها أريدو سيدة كل عام وأنتم بخير ما شاء الله عيد كلا إلهي نبض بس برواق إلهي نبض جرسني ودن كان نبضه إلهي حكر جينا ودن كان إلهي نودجيه وأنكو عيدنا يفيد الجميع ما أنتنا لو فرحة ودايتاي سون كاسبير وعشود بجنبي إيوه أنا وسون كعادي على كلا قيم سنة أنا والعيد والحمد لله وأنا سنة كيس الدحات عادي ما سنتي فهمتي معها نسيت ونكسر ما ركتي نقول سوق القشة هداتين بحر يونيفرسال waxaan salaamayaa ummadda islaamka oo dhan meel walba ay joogaan si guud si gaar ah waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed Cabdullaahi Iimaan Universal TV Stockholm aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi Iimaan intaasi waxaa ku dhan magaalada Stockholm oo caasimadda koowaad ee dalka Sweden markana caasimadda labaad oo iminka aan ku suganahay iyo waliba jaaliyadu sida ay maanta u ciiday ciid wanaagsan magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Axmed oo ku magac dheer Cabdullaahi Joohar oo degan magaalada Göteborg run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maalinta ciidaas sida ay Soomaalidu ugu ciideen magaalada Göteborg magacayga la yiraahdo Xaliim Xasan Faarax waa halkaan aga hambalyaha ummadda Soomaaliyeed oo si wanaagsan u iigtay ciideera kuwa oo sameeyay ku gaarna Allah naga dhigo ciid wanaagsan leh كل عام وأنتم بخير سومالي دهان ماشي جبتوا حالنا هاي سنة كان سنة كيس كوجار بش إبراق عيد مبارك دمان ومد الصوماليات مسلمين تملوا البيجوجان وعلنا عيد مبارك أنا جوا قويس إسلاء أصحاب غير يتبوري وعن سود وين عيد أنا شرفت له ما شاء الله الحمد لله وحن سلامنا ولا الله شرفت له والدك قرابة ملوا بيجوجان إنجليز كقرابة دون كملوا وعلنا عيد مبارك وحالي دا إذ العلي حرسي حروينا السلام أيدي عاشم محمود حبيرتي لول حسن يا هويدي يا أبتياشي السلام عليكم ما أنت عيد ونكسن فوسيس قحب على دا عيد والقد فرحت إسلام كنا فرحت بروجاري إن شاء الله عيد ونكسن كل عام وأنتم بغير دمان مد الصوماليات إلهي وحنا قبريا بش يبرواقو سنة إني كعيدان waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed muslimiinta meel walba ay joogo waxaan leeyahay ciid wanaagsan kuligiina waxaan leeyahay nabad iyo barwaaqo ku iida bashbash barwaaqo macsan magacayga waa Aadan Isaaq Malaaq waxaan hortaaganahay masjidkii weynaay ee Soomaalida waa maalin farxad ah waa maalin ciid ah muslimiinta iyo Soomaalida gaar ahaan meel ay joogto waxaan leenahay ciid mubaarak halkaan waxaan ka salaamayaa horta Duna Faisal waxaan ku xijinayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan magaaladan aan ku suganahay Göteborg ayaa sidoo kale maanta waxaa lagu dukaday masjid weyn oo ku yaala xaafad kamid ah xaafadaha magaaladan Göteborg iyadoo masjidkan muddo 20 sano la diidanaa in la dhiso nasiib wanaag waxaa la ogolaaday sanadkii ugu dambeeyay iyadoo muddo 2 bil iminka uu furan yahay ciidanina waxay noqonaysaa ciidii ugu horeysay oo boqolaal muslimiin ah ay u soo dareeraan inay ku dukadaan salaada ciidul fitriga Soomaali aad u fara badan ayaa ku dukatay masjidkan weyn oo isna ku yaala xaafad kamid ah xaafadaha magaaladan Göteborg maanta waa maalin maartay ciid ah oo muslimiintu ku nool wadankan Sweden gaar ahaan magaalada caasimadda labaad ee Göteborg
ay aad iyo aad maaragtay u ciidayaan ay aad u faraxsan yihiin bishii ramadaanka ay maaragtay dhammaysteen ay guteen muslimiintuna waxyaalo ugu muhiimsan ay ku farxaan oo shareecada islaamka u ogolaatay inay ku farxaan waxa weeyaan marka ilaahay raali geliyaan subxaanahu wa tacaala masjidkan ayaanu ku dukanay salaadii ciidda maanta iyadoo ay ku dukadeen dad gaaraya 3,000 oo muslimiin oo isaga kala yimid gobolada iyo weliba magaalooyinka hareereeya caasimadda labaad ee dalka Sweden magaaladan aynu ku sugannahay ee Göteborg masjidkan ayaa 6 sano ugu dambeysay waxa maamulkeeda gacanta ku hayay jaaliyadda Soomaalida iyadoo ay iibsadeen 6 sano ka hor laakiin hadafkooda ayaa waxa uu yahay maamulka waxa gacanta ku haya Soomaalida waxana ka faa'iideysta dhammaan muslimiinta ku nool magaaladan caasimadda labaad ee Göteborg Ibrahim Umar Baafe Ciid Mubaarak magaalada Göteborg Sweden